السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودوا saaxiibada qiimaha iyo qadarta mudane ku xiran janaalkan walaalaha family. Waa mar kale muuqaal hor leh oo idin kaga diyaarinay musalsalka walaalaha xalqadiisa u dambeysay ee 62 faaladeeda oo dhameystiran. Waa tahay daawad hadii ay tahay markii koowaad soo booqatay janaalkeena. Subscribe noo saar sidoo kale muuqaalkan like noo saar. Waa mahadsantahay inta ka bacdi ku soo dhawow sheekada ama faaladan ugu talagalay xalqadii 62. haddaba xalqada ayaa ka bilaabanaysa halkii ay naga dhamaatay isla xalqadii tan ka horeysay kadib markii gabadhii Aasiya ahayd ay go'aansatay inay Cumar u sheegto wax waliba sida in Axmed Ilmaas uu yahay aabihiisa. Cumar ayayna sugaysay laakiin ugu dambeyntii Cumar waa uu soo galay isla markaan wuxuu ku dhahayaa Suuzaan ama Marwo Suuzaan ayaan ka imaaday waxaana rabay inaan weydiiyo Axmed Ilmaas inuu yahay aabahayga in kale. Aasiyana waxay ku dhahaysaa waa yahay maad weydiisay asagana waxa uu dhahayaa waan weydiiyay sax maxaad kala sugaysay jawaab qurxoon ayaan helay Axmed Ilmaasna aabahayga ma aha. Kadib hab ayay siinaysaa Aasiyana waxay go'aansanaysaa wax qalbigeeda ku jira in ay haysato isla markaana Cumar aysan u sheegin waxba. Muuqaalka xigana waxa arkaynaa gabadhii Afra ahayd oo hooyadeeda Goonuul wax waliba u sheegaysaa sidoo kale waxa u sheegaysaa in ay qoftii Shanguul ahayd cashar u dhigtay halka aan muuqaalka xiga arkayno Uljaan iyo sidoo kale Shanguul iyo ay biko wada sheekaysanay isla markaana hooyadooda ay dhiirigelinayeen waxayna ku dhaheen waxba ha ka murugoonin gabadhaasna na garan waxaan ku sameynayno laakiin Shanguul waxay tiri waxba ku sameynayna ay tiri isla markaana Uljaan ayaa dhahayo hooyo waxba ka murugoonin hana ooyin. halka muuqaalka xigan arkayna Suuzaan iyo Caakif oo si wada jir u cashaynaya isla markaana way ku faraxsanayeen waqti xaadirkaas nolosha ay ku jiraan ayagoo cashaynaya waxaan arkaynaa muuqaalka xiga gabadhii Nabhad ahayd oo walwalsan kadibna waxay wacaysaa Suuzaan iyo Caakifna isla joogeen. Suuzaan ayaa dhahaysaa Nabhad ayaa isoo wacaysa markay ka qabatay kadib Nabhad ayaa la hadlaysaa waxay ku dhahaysaa Suuzaan ii waran maanta maxaa kugu dhaco shaqada la ima weeday. Suuzaanna waxay dhahaysaa Nabhaday waxaad iga soo burisay gurigaagii markii waxaan u maleeyay shaqada xitaa inaad iga soo buri doonto sidaas ayaan u iman waayay shaqada. markaas kadib Nabhad ayaa ku dhahaysa aniga guriga oo kaliya ayaan ka buriyay shaqada xitaa kaama burin ee shaqadaada iskaga soo laabo sidoo kale waxa jira waxyaalo kale oo muhiim ah oo ku sheegay ee berito lama kulmi karaa. Suuzaan oo iyadoo aad soo faraxsan baa waxay tiri waa yahay ee waan kulmaynaa wax dhibaato ah ma jirto bal berito ayaan kulmaynaa shaqadeydana waan ku soo laaban. waa tahay muuqaalka xiga waxaan arkaynaa gabadhii Aasiya ahayd oo banaanka iska fadhida isla markaana wadaadii seefgeeda ay u soo baxayso waxay ku dhahaysaa Aasiya gabadheeda maxaa kugu dhacay wax ayaa jira kaliya aad u fadhiisanaysaa ee maxaa kugu dhacay maxaa soo ogaatay. markaas kadib waxay dhahaysaa aniga xoogaa iska murugeysanahay kadibna seefgee ayaa la soo fadhiisanaysa. ugu dambeyntii Aasiya seefgee waxay ku dhahaysaa Cumar ma waxaad u tahay markaas kadib seefgee waxay dhahaysaa haa inkastoo ay markii hore dafiraysay laakiinse ugu dambeyntii labadooda xitaa way is ogaanayaan waxayna wada go'aansanayaan in Cumar laga qariyo arrinkaasi oo Cumar sidaasi looga qariyo oo aan gabi ahaanba loo sheegin. muuqaalka xigana waxaa arkaynaa gabadhii Yaasmiin ahayd oo iska fadhida gurigeeda isla markaana daawo ayay gacanta ku haysay daawadaasna waxay ugu talagashay inay Aasiya siiso kadib markay ciyaarta dhici doonto. haddaba yarkii Sarbi ahaa ayaa soo galay wuxuuna ku dhahayaa daawadan waa maxay masumba ma Aasiya ee sumay rabtaa ciyaarta darteeda isla markaana Yaasmiin ay dhahaysaa walaal maxaad ku hadlaysaa naga dhamalaayaniga ee daawadan kaliya qofka wax hurda ay ka dhigaysaa waa daawooyinka hooyaday marka Aasiya kaliya way hurdoonaysaa ana ciyaarta ayaan ka badinayaa. muuqaalka xigan waxaa arkaynaa ree Eren ayaan dhahaynaa magacyadooda ma sheegi kareen muuqaalka waqti uma hayna ma fahanti marka magacyadooda ma sheegin ree Eren waa iska fahmi kartiin intaas dhan taxana soo daawatiine. marka gabadhii waxaa imanaysaa Afra ahayd Afra iyo Aybika ay halkaas ku qabsanaya sidoo kale meesha waxa wada jooga ree Eren marka Afra iyo Aybika markaas qabsadaan kadib waxa kala qaban doona Cumar iyo intii kale la joogtayba. waa tahay muuqaalka xigana waxaa arkaynaa gabadhii Suuzaan ahayd oo shaqadeeda ku soo laabatay iyadii Nabhad iyadoo sheekaysi dhaxmari doona. ugu dambeyntii Suuzaan waxay ku dhahaysaa ninkaasi iskaga fogow waan ogahay in uu na kala qabo waliba naagtaas waa shiwaal ninkaasi waxaan ku dhulaa iskaga fogow Nabhadna taleedeeda way qaadanaysaa. halka muuqaalka xigan arkayno Shanguul oo ka hashay bas cunto lagu dhaxiibinayo isla markaana waxa la socotay Xilmiye waxayna go'aansanaysaa baskaaba inay iibsato. halka muuqaalka xigan arkayno gabadhii Nabhad ahayd iyo Axmed Ilmaas oo wada kulmay Nabhadna intii hore Axmed Ilmaas maysan la hadlin kadib Axmed Ilmaas ayaa ku dhahaya maxaad noola hadli la'dahay ama maxaa kugu dhacay Nabhaday. markaas kadib Nabhad waxay dhahaysaa maxaad igu sheegi weydina xaas leedahay sidoo kale waxaad u dhaqmaysay qof aan xaas lahayn oo kale marka waxyaalahaas oo dhan
maxaad iigu sheegi weyday Axmedow. kadib wuxuu dhahayaa waan iloobay runtii ma wax dhibaataad ka qabtaa idin waxay wax dhibaato kama qabi isla markaana Axmed ayaa ku dhahaya arrinkan shaqadeena miyuu saameynaya markaas kadib waxay dhahaysaa ma shaqadeena ma saameynayo wax dhibaato ma jirto. markaas kadib Axmed Ilmaaz wuxuu macasalaameynaya gabadhii nabahadaydu macasalaameyn wuxuu ku dhahaya waa anigu waan sii socdaa waa una iska kici doona waxaadna moodaa in halkaasi sheekadoodii xiisaha baryahan lahayd ay ku dhamaatay. halka muuqaalka xigaan arkayno ninkii beerkii ahaa oo baryaya gabadhii ay bika ahayd isla markaana wuxuu weydiisanayaa caafi sidoo kale wuxuu u ballan qaadayaa in uu dhibaatooyinkan iyo waxaan xadka baxa uu wada uu deyn doono isla markaana wuxuu ku dhahayaa hadaad cafisid waxaan kusoo laabanayaa beerkiga aad ku jecleed. muuqaalka xigaan waxaa arkaynaa yarkii uljaanaha oo buugaagtii doorug soo qaaday isla markaana iib geenaya si ay Aasiye uga qayb gasho ciyaartaasi. halka muuqaalka xigana arkayno Susan iyo Suse iyo sidoo kale Sarbi oo wada jooga makhaayada ama cafeteria isla markaana Suse way ka diidaysaa inay la cabto kafe. markaas kadib Cumar oo isaguna meesha ka dhawaa ay la soo fadhiisanaysaa waxayna soo bandhigaysaa inay heshiiyaan. Cumar wuxuu dhahayaa hadda man heshiinay isla markaana sidaas ay ku heshiin doonaan waxayna isku balansanayaan caawa iyo casho ahaan isu balansanayaan si ay u heshiiyaan. muuqaalka xigan waxaa arkaynaa ninkii toolga ahaa oo arkaya Sarbi iyo Yasmin qorsahooda oo dhan iyo sidoo kale in Aasiye siin rabaan daawo oo ay ku seexato isla markaana toolga ayaa dhahaya balla waa inaan soo khasifo. toolgaan waa uu soo daba kacayaa soo daba kaca ma xume macallimiinta kamid ah waxay ku dhahaysaa alaabtan waa inaad geeysaa qolka iyo qolkaasi. toolgaana wuu ogolaanaya oo alaabtaasi ayuu ku mashquulayaa. halkaan arkayna muuqaalka xiga ciyaartii oo iyadu bilaabma rabto oo Yasmin iyo qoftii Aasiye soo hor fadhiisteen. ugu dambeyntiisa toolga yarkii lagu magacaabayay waa uu soo dhameeyay hawshii loo diray isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan wuxuu u iman doonaa gabadhii ay bika ahayd wuxuu gaar ayuu la soo baxayaa arintan waa u sharaxaya sidoo kale wuxuu u sheegayaa in Aasiye la rabo in la siiyo daawo si ay u seexato ciyaartan ugu guul dareysato. halka muuqaalka xigana arkayna ninkii caakif ah uu yimaaday nabahad isla markaana ka dalbanaya shaqo kamaysan diidin muran dheer kadib waa ay ku ogolaanaysaa oo waxay ku dhahaysaa waayahay shaqeer oo hoose ayay u dhiibaysaa. clubkaasi Yakuut club ayaa la dhahaa ayaa filaya meesha ay nabahad Axmed Ilmaaz isla leeyihiin. waa taa ciyaartu markii ay bilaabatay kadib ninkii beerkii markuu arko ay bike iyo toolga wada jooga asagana waa u tagayaa. markaas kadib ay bike ayaa bilaabaysa in ay dadka mashquuliso ayna soo jeediso dhammaantoodna ay bike ay soo wada eegaan. toolgaan intaas uu ka faa'iideysanayaa biyihii ayuu bedelayaa sidaas ayaana waxaa biyihii u bedelmatay Yasmin sidaas ay biyo ugu bedelmeen oo toolga ayaa bedelay biyaha daawadu ku jireen iyo kuwa kale ayuu kala bedelay. markaa kadib qoftan ay bika lagu magacaabo jilinkii ay waday ayayba joojinaysaa oo waxay daba kacaysaa yarkii beerkii ahaa. halkaasna isku dagaali doonaan oo wuxuu ku dhayaa beerkii maxaa toolga ilaa hadda ka qabanaysaa muxuu sagaar kuula baxay. ayaduna waxay ku dhahaysaa arrinkaas ayuu ii sheegi rabo in Aasiye dhibaatadaas ku soo socoto ayuu ii sheegay. ugu dambeyntiisa calaa kulli xaal muran dheer kadib ayaguna halkaas ay mar kale isku dagaalayaan oo heshiiskoodu mid sii socda muusan noqonba oo markiiba kuwa isdagaala ayay noqdeen. waa tahay gabadhii Aasiye ahayd markii iskuulka laga soo baxay shaqo cusub ayaa u soo baxday. Duruuk ayaa ka dalbaday inuu asaga shaqada sii geeyo ayadana way ogolaanaysaa. sidoo kale Duruuk wuxuu ka codsanayaa in uu laba joogo ilaa inta ay soo baxayso uu halkan ku sugo laakiin Aasiye way ku adkeysanaysaa inuu baxo asagana waa uu ka diidayaa. Aasiyana caruur yar ayaa lagu talagalay ayay ahayd in ay sii hayso inta ay hooyadooda ka maqan tahay. Duruuk ayaa usoo gali doona caruurtii iyaguba halkaas ay waqti ku wada qaadan doonaan. halka muuqaalka xigaan arkayna Shingulo Orhaan u yeedhay isla markaana ku dhahaysa war Orhaanow waad ogtahay saan isu furrey labadeena waan isfurrey aniga unba bixiya caruurta iskuulkooda cuntadooda wax walba bixiye maanta wax baan kaaga baahanahay lacag yar baan kaaga baahanahay caruurta mas'uuliyadooda adiga ku saarantahay ma ka helayaa. adiga Orhaan ahaana kaarkii lacagta ugu jirtay dukaanka goonuul ayuu siinaya wuxuu ku dhayaa inta aadoon waad ka isticmaali kartaa. muuqaalka xigaan waxaa arkaynaa Aasiye oo u timaaday gabadhii caruurta kaga tagtay Duruukna banaanka ayuu ku sugayaa. gabadhii ayaa ku dhahaysa runtii mar Aasiye aadan kaaga mahad celinayaa sababtoo caruurtayda waa la kari waayay qof walba uu hayn kari waayay laakiin adiga waad ii seexisay xitaa aadan kaaga mahad celinayaa. gabadha ajaarkatina heblaayo ayaan lacagta kugu soo diraya macquul miyaa ayay ku dhahaysaa. Aasiyana waa ogolaanaysaa. Duruuk ayana sidaas isku soo raaci doonaa. halka muuqaalka xigan arkayno Cumar oo shaqadiisa imanaya caakif oo asagu meesha ka shaqaynayayba. markaas kadib Cumar wuxuu arkayaa
ninkii toolga aabihiisa ahaa caakif ay ku dhahay halkeed ku baratay ninkaani maxaase seed u baratay. markaas kadib cumar wuxuu dhahayaa waan garanayaa waa nin xun oo toolga ayuu isagoo dilay toolga oo sabab u noqday inuu dhakhtarka galo ayuu haddana sii canaananayay caruurtiisa ayuu cadibaa. caakifna halkaas ayuu ka faa'iidaysanaya si uu hoteelka uga eriyo ninkii waa uu garaacaya isla markaana sidaas ayuu hoteelka uga eriyaa. marka caakif waxay la tahay dadka hoteelkan ugu sarreeya inuu ka mid noqday marka laga imaado dadka iskale. muuqaalka xigana waxaa arkaynaa Shanguul oo iyadu shaqadeedii si toos u bilaaban rabto ninkii baskii cunto lagu dhex iibinayay lahaa inta u timid lacagtii siisay. halka muuqaalka xigana arkayno caakif oo ninkii aad u buriyay toolga aabihiisa. cumar ayaa kasoo dababaxaya asaguna oo markuu kasoo dababaxa kadib wuxuu la hadlayaa Uljaan wuxuuna ku dhahayaa guriga toolgaawi waa inaad si degdeg ku aadiin si aabihiisa uu u dilin waa nigada imanaya iga sii hor aada. markaas kadib Uljaan kama badiidayo waa uu ka ogolaanaya asaga iyo IBK oo wada socdana sidaas ayay ku aadayaan dhankaas iyo guriga toolga ayaan ka wada sorry maalmaan magacyadan isku qaldayaa. markii aadaan kadib waxaa albaabka ka furaysa gabadhii Leela ahayd sidoo kale waxaaba la socday Cumar. markaas kadib toolga ayaa weydiin wuxuu ku dhahay sababta noo soo ziyaarateen maxay tahay. kadib su-aashaas jawaabteeda way ka mameerayaan Cumar iyo Uljaan iyo waxayna ku dhahayaan kaliya waan kuwan ku xiisnay oo kaliya ee dhibaato kale ma jirto oon intaa ka ahayn. kadib wuxuu dhahayaa way wax dhibaato uma arkay ee soo fadhiistay isla markaana odaygii toolga dhalaya imanaya isagoo dhawaaqaya markuu arko inay dad kale la joogaan waa uu isdejinaya. halkaasna waxaa ku badbaaday toolga yarkii lagu magacaabaya halkaasuu ku badbaaday marka aabihiisana wax dhibaato muusan u geysan. ugu dambeyntiisa Uljaan iyo IBK iyo sidoo kale Cumar waxay go'aansanayaan in ay iska tagaan oo iska laabtaan maadaama wixii ay rabeen ay heleen. halka muuqaalka xigaan arkayno Sarbiya walaashiisa oo qorshe kale oo cusub wada. qorsahaasina waa qorshe ku saabsan imtixaanka soo socda. muuqaalka xigan waxaa arkaynaa gabadhii Aasiye ahayd oo raadinaysa buugaagtii Duruug isla markaana ninkii buugaagta laga iibiyay u imanaysa waxayna ku dhahaysaa buugaagta ay rabeen in dib u cusubno. markaas kadib wuxuu ku dhahay dukaanku adiga amaanadeeda alla kulli xaal buugaagta ay raadinayaan waqti badan. halka muuqaalka xigana arkayna Shanguul in ay baskii soo iibsatay sidoo kale dhamaanba dadka dhan ay wada sheegayso Cumar iyo Uljaan iyo ayagana ay arinkaasi ku farxeen sidii aan hadda koor goos ku soo aragnayba. halka muuqaalka xigan arkayno iskuulkii oo subax tahay la wada imanaya dhamaan. markaas kadibna Suuse ayaa Cumar la hadlayso waxay ku dhahaysaa Cumarow waan iska ka cafiyay xalay toole sababtoo waxa laga yaabaa inay shaqaynayso saa daraadeed waan iska ka cafiyay ayay ahayd. markaas kadib ninkii toolga ahaa oo socday wuxuu dhahayaa dhalinyaro ma ii sheegi karteen xalay toole sababta noo soo booqateen. Suuse ayuu hadalkaasi meel ka taabsanaya waxay dhahaysaa maxaad ula jeedaa sidoo kale meesha waxaan ka marnayn yarkii beerkii lagu magacaabayay. markaas kadib Suuse inta xanaaqday waxay dhahaysaa xalay toole ma waxaad joogtay guriga toolga iyo yacni guriga Leela iyo miyaa joogtay. markaas kadib wuxuu dhahayaa Cumar Suuse meel kale soo lagma wanaagsan ku wada hadlo isla markaana Suuse waa idiidaysaa. halkaasina muran dheer ayaa ka dhalan doona waxaana rajaynayaa murankan aad ka u dheeraa in aan muuqaalada xiga mid idinku soo faahfaahino oo dib ugu laabano. haddaba markaas kadib waxaa hadlaya beerka wuxuuna dhahayaa Suuse waxa meesha ka tagin meeshan ayaan ku wada hadlaynaa. markaas kadib beerka wuxuu la hadlayaa IBK wuxuuna ku dhahayaa xalay toole waxaad la joogtay toolga. markaas kadib toolga ayaa xanaaqay wuxuu ku dhahay wariyaa maxaad ku hadlaysaa doqoyo xunkaan iyo IBK maxaan si wada sameynaa Cumar ayaa la socday ee dhamaan. markaas kadib beerka ayaa dhahaya arrimaan ogeyn inay sameynaysiin soo lagama yaabiyo waxyaalo aan macquul ahayn. haddaba toolga ayaa xanaaqaya wuxuuna dhahayaa maxaa kaa qaldan anaga wax mana sameynin. markaas kadib beerka ayaa hadalkiisa sii wadan doona wuxuu ku dhahayaa waa jeceshay soo maaha IBK laakiin soo cabsanaysaa uma sheegin karti soo maaha sababtoo aan matiyad. haddaba beerkii hadalkiisa waa u badan doonaa wuxuuna ugu dambeyntii ka xanaajin doonaa yarkan toolga lagu magacaabo. toolgaana intuu dhaho haa waan cabsanayaa laakiinse asaga ulamuusan jeedin IBK inaad jacayl u sheegto waan ka cabsanayaa wuxuu ka jeedaa asliyan inuu cabsanayo oo sidoo kale dhanka aabihiisa waa caqabad ay ka haysato. markaas kadib toolga wax walba qalbigiisa ku jira ayuu banaanka keenayaa in badan ayuuna calaacalayay. haddaba inta ugu muhiimkasan waxaa ka mid ah in toolga hadda ka hor uu dareemi waayey qoftii haare ka ahayd in ay jeclaatay isla markaana asagu uu waxba dareemi waayey. marka arrinkaas wuxuu ku tilmaamay in uusan asagu lahayn dareen wax dareemaba ama qalbi jacaylada dareema. kulley cunuga aad ayuu beerka uga xanaajiyay ay ahayd wax walba uu ku hadli karana waa uu ku hadlay. ugu dambeyntiis hadalkiisa wuxuu ku soo koobay inuusan ayagoo kala ahayn asagoo calacalay kolba qof u dhowaanaya. markaas kadib muuqaalka xiga waxaan arkaynaa Suuse iyo gabadhii Suuse iyo waa gabadhii ma fahantay marka Cumar ayaa la taagan. markaas kadib Suuse waxay ku dhahaysaa
cumarow arrinkan shalayt hore ayaan rabay inaan kuu sheego laakiinse arrinkan hadda ayaan rabaa inaan kuu sheego waad ka soo daahday waxay ku dhahaysaa cumar darto ku sheego aniga ma doonayay jacaylkaaga mana doonayay qof been ii sheegay inaan mar waliba lisii joogo marar badan ayaad been ii sheegtay halkaasna waxaa nooga caddaatay Suuse iyo Cumar wixii la dhihi jiray in ay sidaasi ugu kala dhamaatay ma sheegi karo heshiiskooda xiga laakiinse xalqadan halkaas ay ku dhamaatay halka muuqaalka xigaan arkayno macallin oo jooga oo dhankaas iyo fasalka jooga isla markaana natiijooyinka ayuu sheegayay waxaana dhacay Cumar Asiye Uljaan IBK Dooruk intaba waa ay dhaceen marka yacni waxayna ku dhaceen waxaa loo bedelay cashirka ayaa loo bedelay ahayd waxaana bedelay Sarbi ugu dambeyntiisa Sarbi ayaa iscadeynaya cafeteria wuxuu ku dhacayaa aniga wax walba ka dambeeyay oo idin bedelay cashirada sidaasina oo ku dhacdeen laakiin Dooruk ay xanaaqay ku baboodaya Cumar xitaa uu ku soo boodaya haddaba laakiin ugu dambeyntii ninkan Sarbi lagu magacaabo wuxuu ku soo koobaya walaashaydii aniga ba hanoo soo dhawaadin haddii aad rabtiin nolol ama yacni si fiican inaad u joogtiin aad rabtiin aniga walaashayda hanoo soo dhawaadin mar dambana isku dayna in aad wax nagu samaysiin markaas kadib Cumar ayaa kala tuuray wuxuuna ku dhacayaa baaldi oo qashinka lagu guro ayuu ku dhacayaa qof ka soo saarana waa la waayay Uljaan ayaa sawir ka qaaday Cumar waa ku qoslayaa sawirkaasna magac ayuu u bixinayaa gadaal ayaan ka fahmi doonaa muuqaalka xeeno xarkeena gabadha Afraa ahayd oo u soo galaysa odig warhaan ah gunul oo jooga Afraan waxay dhahaysaa kuwa jaarkeena ayaa waxay furteen meel cusub oo lagu iibiyo cuntada ama bas macaamiishiina nagala wada wareegeen isla markaana Orhaan iyo Gunul waxay go'aansanayeen qofkaas soo eegaan ayna la hadlaan ku dhahan maxaa ka qaldan meeshana waxaad ka furatay maxay tahay dukaanka nagimiyaada u jeedin ugu dambeyntiisa waxay ogaanayaan inay shanguul tahay wayna iskaga laabanayaan waxay sameeyaan ma garanayaan markaas kadib waxaan arkaynaa ninkii Cumar ahaa iyo walaashiisii Emeel ahayd oo baaskiil wadata waxayna ka dalbanaysaa inay dukaankan ka soo iibsato rooti ama furon markaas kadib lacag yar ayuu siinayaa markii Emeel soo uga dhaqaaqdo ninkii Sarbi ahaa ayaa u imanaya Cumar Sarbi ayaa ku dhahaya maadiga cabsatay xoogaa Cumar ayaa dhahaya aniga nooca oo kale kama cabsadii halkaas ay isku dagaalayaan markii Sarbi laga awood bato ama laga taak bato waxa dhacaysa in raggii uu Sarbi ugu talgalay in Cumar dilaan ay gaari ka soo dandegaan isla markaana Cumar intay qabtaan ay dilaan Cumar oo ku dhawaaqo adiga nimadiid kaliya ma itimaadid marag baa soo ka haysatay Cumar ayuu si xun u dilaya ugu dambeyntiina qashinka ayuu ku tuuri doonaa sidoo kale sawir ayuu la galayaa wuxuuna ku dhahayaa maxaa igu qoslaysay markii aan iskuulka joognay markii aan meesha qashinka ku dhaxdhac maxaa igu qoslaysay waa ka sawirkii aad adiga Uljaan ka qaadiseen waa jawaabteedii ama bedelkeedii sawirkan magaciisa ma taqaantaa sawirka xiradigaaga iyo xasaas oo dhaay marka muuqaalka xeen waxa arkaynaa Sarbi oo intuu aad soo faraxsan yahay la Cumar waan soo dilaa 10 aan u baray ninkii la socdayna uu leeyahay Cumar ilaa 5 cisho soo socota in uu kici doono maadaama si xun u garaacnay Sarbi oo gaarigiisa wata ayaa waxa uu dardari doonaa gabadhii Emeel ahayd ayuu halka gaariga ku jeesanaya wuxuuna isku dayayaa inuu caawiyo laakiinse kuwii la socday oo diiday waxay ku dhayaan ha caawinin sababtoo deed habsatay waxa laga yaabaa in gacmaha laga helo marka ma caawin kare in mar Sarbi oo rabay inuu caawiyo ayaa qasab lagu kaxaynaya Cumar intuu hurdadii ka soo kooco ama dilkii loo geystay dhaawac loo geystay intuu ka soo koocayo wuxuu dhahayaa Emeel meesha furanka ay tagtay maxaa ku dhacay maxay la hadal soo laaban laadahay markaas kadib Cumar wuxuu raadinayaa gabadhii Emeel ahayd ayuu raadinayaa ugu dambeyntii wuxuu helayaa iyadoo meel banaan tiifto oo dad dhowr qof ay ku hareereysan yihiin kadibna magaceeda ayuu ku dhawaaqayaa wuxuuna soo xasuusanayaa inuu asaga sabab u ahaa inay baaskiilka uu siiyo inkastoo iyadoo ay dalbatay in baaskiilka la siiyo كل حلقة halkaas ay ku dhamaanaysaa gabadha Emeel ahayd oo dhulka joogta iyo yarkii Cumar ahaa oo ku dul barooranaya oo walaashiisa wuxuu ku dhacay aad uga naxsan daawada muuqaalka like noo saar waxaan soo gaarnay gabagabadii muuqaalkeena maanta waxayna la tahay maanta inaan soo dadajiyay oo waxyaalo badan aan idin faahfaahinin kulli maanta iyo bari iyo saa dambe macluumaad insha Allah ma jiri doono ee xalqadan ayaan ka daba tagi doonaa waa maasantahay intaa kadib daawada ee muuqaalka mar kale like noo saar haddii aadan saarin oo kaliya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh